maalintii saddexaad galay shirkii wada tashiga beelaha Sool Sanaag iyo Cayn uga soconayay xarunta Daraawisheed ee Taleex shirkan oo ay maanta ka soo qayb galeen dhammaan beergooyinkii loogu talagalay in shirkan ka soo qayb galaan ayaa waxa uu horeynba halkaasi aayadaha Quraanka ku furay mid ka mid ah culimadiinta gobolka Sool oo markaasi goobjoog ka ah shirkan sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay garabka SSC oo ay u hadleen hogaamiyaha ururka SSC Salabaan Ciise Axmed Kaar Xagla toosiye ku xigeenkiisa Cali Sabrey iyo waliba xogayaha xiriirka arrimaha federaalka ee hogaankaasi Ibrahim Gure waxaana ay dhamaantood ka warbixiyeen waxqabadkii hogaanka SSC uu qabtay muddadii 2 sano ahayd ay jireen waxaana dhamaantood sheegeen inay taageersan yihiin shirka Khaatuma labo isla markaasna waxa ay soo dhaweeyeen shirkan oo ay sheegeen in loo baahan yahay in beelweynta degta mandaqada Sool Sanaag iyo Cayn ay u baahan tahay in ay si rasmi ah u wada tashato isla markaasna ay isturxaan bixiso waxa sidoo kale madashan ka hadlay qaar ka mid ah isimada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ay ka mid ahaayeen Garaad Salebaan Buraale Garaad Abshir Saalax Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil Ducaale iyo Boqor Cabdullaahi waxaana ay dhamaantood ay soo dhaweeyeen shirkan Khaatuma labo ay